iyadoo muddooyinkan dambaba ay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah nabadiidka kuwa oo ay ka fulinayeen qaybo ka mid ah gobollada dalka isla markaana uu hareer socday xuuraanka qarsoon ee lagu soo afjarayo ilaha ay dhaqaalaha ka heli jireen iyo agabka ciidanba ayaa haddana waxaa toddobaadkan ay gacanta ku dhigeen rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo muddaba lagu raad joogay isla markaana xogtooda ay hayeen ciidanka sirdoonka ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in howlgalladaas ciidan oo isugu jira ka hortag iyo ka dabatag kuwoodii ugu dambeeyay oo bartilmaameedkoodu u qorsheysnaa ay ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka hubeysan ee duufaan oo garab ka helaya ciidamada qarsoon ee Niisa iyo qaar ka mid ah shacabka ay ka fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir iyo duleedka Muqdisho laguna guuleystay gacan ku dhigida xubno muhiim ah oo ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab kuwaas oo ay suuragal tahay kolka ay dhamaato xog wareysiga baaristooda in la helo magacyada iyo xilalkooda doorka ka hortagga faldambiyeedyada oo ahaa mid ay caqabad badan kala kulmi jireen hay'adaha amniga ayaa hadda waxaa muuqata tayeynta sirdoonka Soomaaliya in uu suurageliyay in walaac iyo walbahaar fara badan uu soo food saaro guud ahaan kooxaha dhibaatada ku haya jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeedba haddii ay ahaan lahaayeen shisheeye daran muuqda iyo kuwo qarsoon leh iyo adeegayaal ay ku dhex abuurteen gudaha dalka dadka oo dorasho arrimaha ammaanka ayaa ku amaanay madaxda iyo saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sida ay ugu guuleysteen in aysan marnaba ku milmin siyaasadda awooddoodana ay isugu geeyeen badbaadinta dalka dadka iyo diinta iyagoo tilmaamay haddii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay u joogtayso shaqada ay hayaan sida ay u wadaan iminka 3 sano ee soo aadan gabi ahaanba Soomaaliya ay ka suulayaan kooxaha lidiga ku ah ammaanka iyo waliba ajaanibta u adeegaya danaha shisheeye ee iminka dhabarjabka kala kulmay soo nooleynta xuuraanka sirdoonka Soomaaliya